I was a small milk vendor from Ghanicha. Wiliga maqaade saddex la caane saddex la koow laba saddex glass and each glass is 20 back in 97 98 99 yaa bicho ilaa iyo raamodiimtu ayuu yaraantiisa xoolo ku soo raac jiray sidoo kalena waalidkiisa kala shaqeyn jiray beeraha isla wiilkaas yaraa ayaa sanado kadib dib ula soo laabtay wax qabad wuxuu degay qalbiyada dadkiisa iyagoona ula baxay biil baajiye baastaale iyo magacyo kale tani waxay imaaday markuu juhdi badan soo geliyay dhanka waxbarashada taasoo ka dhigtay in uu ka mid noqdo saxaafiyiinta ugu firfircoon dalkani Kenya oo ka soo jeeda gobolka Waqooyi Bari. haddaan wax yar kaaga taabto Cabdullaahi Calas oo wax yar kaaga taabto horta taariikhda ugu horeysay meeshaan ninkan iskuulaas ka galay iskuulaas ka dhameey waa ka dhacay baadiyaas galay beere iyo wax baas falay loo dhaqataad noqday marka dan waa ku noqday markaas iskuulka dhameey kollejaas aaday hay'adaha soo ka soo shaqeeyay wax qabadkii ugu horeeyay oo la arka waxaas ka bilaabay 1500 oo ruux as meeshaan u keenay cunto oo loo qaybi ilaa woodkan ilaa woodka kale ka baxsan. Cabdullaahi Calas oo ku magac dheer Baashow ayaa ah wariye lagu yaqaano samafalka iyo hadalka dadkan codkooda la maqlin ayaa sanadkan ku soo biiray hardanka loogu jiro kursiga MC-ga wardka Raamodiimtu wuxuu wada dadaalo shacabka lagu kasbanayo sida taageerida goobaha waxbarashada beeraha biyaha iyo mashruucyo kale oo ay dadkiisa abaal ugu hayaan in la helo cunno ku filan muwaadin walba waxaa loo baahan yahay in wax laga qabto arrimaha beeraha waxaana tani aaminsan Calas oo doonayo in uu Raamodiimtu ka dhigo deegaan wax soo saarka beeraha ku fiican iyo in hooyo walba hesho qudaar ku biciso nafaqada dhallaanka iyo hooyada. Maxamed inaad ogaatid dadku waa inay bartaan wax loo yaqaan mixed farming in la beer galley kilix maaha waxa la abeer karaa digir la abuur karaa qudaarta iyo qudradda nooceeda kala duwan taasi waxay ka kaafinaysaa marka dadka inay noqon malnutrition oo ku yaraanin macdinta loogu baahnaa jirka beerahan sababta waxa loo helayo dadka malnutrition ay ugu baahan waxa beerihii biyo ma leh beerihii xirfad ma leh waxaa jirta wax loo yaqaan modern farming ama contemporary farming waxaa jira greenhouse jira piping baa jira marka waxaan rabnaa in lagu daro qudradda yaanyada basasha sukuma wikiga cabbage-ka iyo dhammaan wixii la abuuri karo annagoo ka faa'iideysanayna wasaaradda beeraha oo county-ga iyo wasaaradda beeraha ee nationalka anigoo ballan qaaday haddii la soo doorto inaan isku xirayo dadka culunta u leh beeraha inay yimaadaan oo dadkan lagu tababaro qaababka kala duwan ee loo soo saari kara qudradda kala duwan yaanyada camal haddii cunto vitamin A baad helaysaa vitamin K uma baahna in marka wax soo saarkeena hadduu yeesho qudraddii iyo sukumaaga iyo cagaarka dadka inay cunaan la baro uma baahnin hay'ad iyo buskud dhuuq in meelaha noogala keen uma baahan maxaa yeelay qofka dhuuq markuu u baahan waa nin ka liita xagga qudradda marka gabdhihii baan rabnaa in ayagan inaan kala qayb qaadano inay ka mid noqdaan in dadku wax abuuraya laftirkooda xirfad la siiyo hadday yaanyo cunto hadday qaro cunto uma baahnaanaysa inuu ama dhiigga ka dhamaado ama ay digir cunto ama ay qudradda cunto oo la tababaro iyada laftirkeeda marka jil ahaan waa dhismaysaayo cideeda way ilmaheeda way noolanayaan lacagna way ka samaynaysaa. Deegaankan ayaa leh dhul ku fiican beerista dalagyo kala duwan balse weli maysan helin cid ka taageertay dhanka beeraha iyo biyaha. Waxaa la dhahaa Axmed Koorib Cabdille waxaan ku noolahay ward Raamodiimtu waxaan beerahan Ilaahayna siiyay wax qabadka dawladda wax badan umba wax noola sheegaa laakiin Ilaahay amarkiisa ma arkin hadan ka horo waxaan hadda u joodiino sircaan ahna xilli roobaadkii baan ka faa'iideysanaa laakiin bal umba ay gaaraan ma weyn raashin ay gaaraan malaha waayo xilliga abaaraha wixii looga shaqeysan lahay waa xagga biyaha ma haysan awoodno ma hayna biri dhaxdaana kanaal dhaxdaada la soo qaadsiyo dhaxdaana isku gooy beerahan basahan oo intaan baaxadooda ay leeyihiin xilli abaaradahan dawladda jirta maanta oo dadkeeda shacabka ku dhex nool yahay wax qabadkeeda waaba la yaabanahay sida ay sheegeen dadka deegaanka Calas ayaa lagu yaqaanaa ka warqabka baahida dadka waxayna aaminsiin haddii ay sanadkan u codayaan inuu helayo fursado lagu garab istaagayo horumarka deegaanka. Cabdullaahi waa nin aqoon leh waa nin dabeecad leh waa nin bulshada ka dhashay oo xogteeda yaqaan ونمين كورو ماشي عبد الله أي كهلين كان صلاة هذا سكيلي لهاي وحن أمن سنة غفك الجهل غفك ويلك وحن لو نبقى نين أغان لهاي ونرس عن لهاي أنا سأهان لهاي أمن سنة
ninka koobaad oo mar inaan soo istaagay aan ka reebnay waxa qabadkiisa koobaad aan arki lahayn asahay nin aan heen shakhsi aan rabin asahay Cabdullaahi Calas sidaan ku aqaan marka hadii aad soo gal lahayn waxaan filaa in aad wax badan oo wax aas ka qaban lahayd beeraha saasan qaybsana aan aaminsana hadda ninka waxa fursad la siiyay horta ninkan waxa waay wax weyn is qaban karaa maxaa yeelay meeshan is degan yahay bis meeshan degan wiis meeshan degan tahay waqti kasta waa imaadaa asoo waxba aan heen oo hadda aan kaansan waxba aan heenas meeshan imaaday dad badan qof dad xanuunsan oo badan iska qaaday oo saam dheragi oo waxa waay soo saaciday soo taqtiri oo haddana soo cilmiyan ku soo cili meeshan dad oo madar raashin bilcaama rafaasan raashin u keenay oo u qaybi marka maan hore raashin kalaas noo keenay marka inaas wax badan naga qaban karo waxa waay bulshada ka bedeli karaan aan aaminsan dad la soo gal Calas oo ka soo shaqeeyay hay'ado kala duwan iyo warbaahinno ayaa dadka deegaanka ku amaanayo wax qabad muuqdo sida asaasida goob lagu barto cilmiga diinta iyo samata bixinta masaakiinta waqtiyada abaarta madrasada waxa iskuulka lagu dhaaqrinay 3 galaas oo madrasada noo dhisay oo marka waxa waaye oo nagu saacideed noo dhisay marka waxa waaye kitaabo oo ilmaha oo kitaabo la siinaa noo keenay madrasada kitaabo u keenay xaqan oo masaajidaha kitaabaas keenay marka intaas naga saaciday xaqas qaadka iyo dhankaas wuxuu ka qabto weyn madrasadan asaga keenay hadda waxa waaye waa 3 galaas oo waaweyn asaga keenay ana soo meel iska keenay asagoo day madrasadan aan indhisaa dahay waa noo dhisay hadda intaan yar ay qabyo ka tahay inta yareedna waxaasna dhahay meel aan wax ka keenaba waa un hadda waa in dhamaashatira hadii xil soo galay hadaan soo galin baan dahay labadan birbiyahan cabahayna soo halawsan oo imaaday waa naga yar caawi tabartiisa naga caawi hadda cabitaankan cabahayno barka ku cabahayna asaga naga caawi waxaan aaminsanahay inaan furdud u helinayna hadii aad soo gala in aan aad dhanka biyaha aan baahidooda aan ugu baahi beelinayna aaminsan Cabdullaahi Calas oo aan safaradiisa ku helinay ayaa shacabka deegaanka u ballan qaadayay in uu horseedo horumar iyo waxqabad sida lagu yaqaanay musharaxiinta kale Calas ma lahan samaaxada muusig ka daaran iyo bixinta lacago balse wuxuu aaminsan yahay in uu guri walba ku kasbado waxqabad muuqdo ka hor doorashada iyo kadibba I used to see Abdullahi Calas from the social media, but right now as I'm standing here it's very good that I've seen him physically and inshallah I would like to be like him and you know he was my mentor for a long time. Mohamed Eki Ibrahim, Mandera North.